kadib markii ciidanka Somaliland ay ka baxeen magaalada Taleex oo talaadadii ay qabsadeen ayaa hadda waxa dib ugu laabtay halkaasi qaar kamida madaxda maamulka Khaatuma waxa kamida madaxweynaha Khaatuma Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo dib ugu laabtay Taleex telefonku aan goor dhaweyd ku wareystay ayaan weydiiyay bal xilliga uu ku laabtay magaalada bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada Taleex waxaan ku soo laabtay saaka waa berigi xagee jirtay waxaan joognay sidaad ka warqabtid ba hadibkeeda leeyahay daraato inay duulaan gardaraan ku soo qaadeen ciidamada fara badan oo maamulka Somaliland ka yimid ka bacdi dagaal lagu dagaalamay meesha magaalada duleedkeeda ilaa magaalada duleedkeeda iyo magaaladii soo galeen oo maxay ahayd lagaga itaalbateen muxuu ahaa aanu dhinac uga baxnay marka shalayto qalabnimadiina hadibkeeda leeyahay dagaal ba dib baa lagu soo rogaal celinayo ciidamadooda magaalada duleedkeeda qayb fadhiday baa hadibkeeda leeyahay dagaalanay magaaladina way ka baxeen magaalada gudaheedana shacabkii oo aan kala gool lahayn baa u halay yaa la dagaalamay laakiin Indhasheel iyaga iskood uga baxay Soomaha awooda adinku u sheegateen ugama saarin magaalada iskood ugama baxeen oo markii horeba may soo doonino gabayada qori dab la yiri maxay toordo reerka deriska dab ka soo qaadmay ahayn waxay masaafada inta leeg uga soo socdeen iyo muxuu ahaa ciidanka inta tirada lagu soo socdeen waxa weeyaan ma ahayn hadibkeeda leeyahay galid bixid ma ahayn mahadiha ka gaadhay ilaahay ka sokow shacabka degan degmada Taleex oo aan u kala hadhi waayay dagaalkooda loo doonayaba ha ahaadee iyo ciidanka dawladda Khaatuma iyadoo hadibkeeda leeyahay intay talhaysay isugu geysay ayaa ka saartay waan ka warqabaa aad markaan kuwa ugu mahad celiyo aan qodobkaana ilaahdo waan ka warqabaa Pressure International Community xaqiisa ka yimid haato Ingiriiska haato Pressure marka laga soo tago madaxweyne Pressure-kaas marka laga soo tago adigu magaalada joogtay markii raggan ay qabsanayeen meeshan waxaad sheeganaysaa inaad mas'uuliyad aad leedahay oo xarun ay u tahay maamulkaagii marka maxaad shacabka u difaaci weysay intaadan magaalada aadan ka baxsan farxaanow magaalada kama baxsanee bal horta afkaaga hagaaji waa mar kale difaaca aad wax difaacdaa itaalkaagu leeyahay waa marka saddexaade dagaal baanu ku galay magaalada duleedkeeda magaalada kuma jirin waxaanu kaga hortagnay hadibkeeda leeyahay 30 kilomitir meel jirtaanu kaga hortagnay laakiin waa laga ku dagaalanay dagaal ku dhacay laakiin waa laga itaal roonaaday Sooma aha dhimasho iyo dhaawac dagaal sababayna ma uusan idin dhexmarin wuu dhexmaray kii shalay la dhexmaray ba dhimasho lahaayo waa kuwa xabaalahoodii yaalo oo saddex baa ka dhimatay shalay galaba maxay ahayd waa runta oo markii hore ay soo galayeen laba qof laba maxay dagaalanta mid uu baa adkaade markii hore awood lagu soo jiiday markii dambe hadibkeeda leeyahay hadda deedibasho doonayso xawaalahooda kaalayo aan ku soo qofle soo qaalay su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay Indhasheel idinka maamulkiinan Khaatuma xitaa ayaa kala qaybsan oo waxa la yiri raggan weerarka soo qaaday kuwaad isku deegaantiin baa ku jiray oo ciidamadoodii iyo tiknikadoodii ku jireen marka idinkii baba kala qaybsan Soomaha ma kala qaybsaneen ciidan Khaatuma iyo dad Khaatuma toonihi kuma jirin madadaan isku haybahay warde hayb maaha maamulka kan maamulka Khaatuma hayb maaha maamulka Khaatuma beelaha Soomaaliya sanaag iyo cayndiga ku bahoobay maaha hayb maaha marka waxaad leedahay dad aan isku deegaan nahay lama socono magaalada ma soo galin waxaan ku yiri mabda Khaatuma dad qaba oo deegaanka degan Soomaaliya sanaag iyo cayn oo la socday ma jiraan Khaatuma waxa weeyaan waa dawlad goboleed maaha wax qabiila maaha waxa weeyaan beelaha degan Soomaaliya sanaag iyo cayn baa ku bahoobay maxay maamulka dawlad goboleedka Khaatuma xaguu ku dambeeyay hadda marka xaguu ku dambeeyay marka shir baad meesha ku qaban rabteen baa la yiri waa la idinka kala tuuray wixii marka hadda maxay idin talaa war farxaan malaha hadibkeeda leeyahay afka intiisa khariban baad ka taqaanaa dad ma kala tuurminu meesha ciidan baa weerar ku soo qaaday gardarra waanu ku dagaalanay waana la difaacnay magaaladeena hadday soo galeen ka saaray shirkuna waa halkiisii sidiisii buu qabsoomaya yaa ka qayb galay maxay tahay ujeedada shirku maxay tahay yaa ku casunteen waxa ka qayb galaya wixii awalba loogu talay ka qayb galaya dagaalka Khaatuma yaa loogu talay Khaatuma ka tirsan ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen ujeedaduna
ujeedadu waxa weeyaan markii hore laba sano iyo bar ka hor dowlad goboleed kumeel gaar baa laga dhisay, halka kan dowladdii rasmiga ahayd ee dowladda kumeel gaarka bedeli lahayd baa lagu dhisayey iminka shirka kan laysugu imanayo. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka khaatuma maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo taleefanka igu warramayey isagoo jooga magaalada Taleex.